wanaagsan dadlaantii meelka soo joogtaan ku soo dhawaada wararkeena subaxnimo ay soo gudbin doona qodobada ugu koron waxa kamid ah caqabadaha haysta qabsabada shirka golaha wada tashiga doorashooyinka oo aan wali ka furmin magaalada Muqdisho maalintii labada dib u dhacay dowladda Soomaaliya war ka soo saartay weerarkii deegaanka Wesley sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhaawacyada laga keenay kuna soo dhaawacmay deegaanka Wesley ku booqday isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay xeer cusub qodobada kale ku maal doontaan subaxan saakan waxa kamid ah dagaalka u dhaxeeya Xuutiyiinta iyo ciidamada Yemen oo sii xoogaysanaya taasoo faahfaahsan ku soo wali hakad ku jira oo aan qabsoomin shirka ay ku ballansanayeen in uu furmo golaha wada tashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo waliba gobolka Banaadir shirkan ayaa qorshe u ahaa in uu furmo sabtidii hashayatay dib ayuu u dhacay balse shalay iyo mar kale sidoo kale dib u dhacay kadib markii uu shirka uu diiday ka qaybgalka madaxweynaha Hirshabelle Cali Guulaawe Xuseen wararkan keenana ayaa sheegay magaalada Muqdisho in xalay ay kulan ay yeesheen qadka telefoonka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo wada kaas oo ay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo ku maqan dalka Turkiga waxaana kulankan uu ahaa mid lagu doonayay in lagu qanciyo madaxweynaha Hirshabelle inuu shirkaasi ka soo qayb galo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dadaal ku bixinaya uguna jira sidii uu shirkaasi u qabsoomi lahaa wana soo qayb gal lahayn madaxda ka maqan haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerarkii ay shalay al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Wesley oo ka tirsan gobolka Mudug saakay ay ku qaadeen shacabka degmada Wesley ee gobolka Mudug kaas oo ay taasi tiraanyay u direen madaxda ugu sareysa dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in dowladdu ay qaadatay tallaabooyin degdeg ah oo lagu gurmanayo shacabka reer Wesley oo ay saaka muujiyeen geesinimo isla markaana iska celiyeen wax ugu yar argagixisoo soo weerartay sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in 41 xubnood oo al-shabaab ah looga dilay dagaalkii shalay ee ka dhacay barqanimadii deegaanka Wesley halka tira intaas ka badan ay looga furtay hub iyo gaadiid sida ay sheegeen ciidanka xoogga dalka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo uu wehelinayo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa isbitaalka ku booqday askari iyo waliba dad rayid ah oo ku soo dhaawacay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Wesley ee gobolka Mudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo isdul taagay dhaawacyada ayaa dhaqaatiirta ka dhageystay warbixin la xiriirta dhaawacyada isagoona u rajeeyay caafimaad degdeg ah waxa uuna ugu mahadcelisay geesnimada leh iskaga caabiyeen cadawga al-shabaab ee soo weeraray golaha guurtida ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland ayaa waxay ansixiyeen xeer ah ee oggolaanaya in la furo urur siyaasadeed cusub xeerkan ayaa waxa uu iminka loo gudbin doonaa golaha wakiilada Soomaaliland si ay u doodaan una ansixiyaan